boqolaal dadweyne oo careysan ee ku dhaqan deegaanka ceelgaal ee dhanka waqooyi kaga toosan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa saaka isugu soo baxay buundada deegaankaasi ceelgaal kuwa oo xiray kuna jaray dhir waaweyn taayiro qaar ka mid a goobjoogayaasha ee ku sugan deegaankaasi ceelgaal ayaa warbaahintii u sheegay inay ka careysan yihiin magacaabis la filayo inuu madaxweynaha maamulka hirshabelle halkaas uu kaga dhawaaqo isagoo ay weeliyaan 9 xubnood oo ka tirsan xukuumaddiisa. dibadbaxayaasha ayaa waxay isugu soo urureen buundada iyagoo markaasi ku qaylinaya hadallo ka dhanaa xukuumadda maamul hirshabelle.